runtii waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan joogno meel aan muddo aad u fog ka maqnayn annagoo ugu mahadcelinayna runtii gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo in aad u shaqo badan ah xaafadana meesha aan taaganahay hadda labada baalo aad kaysaan ninkii yaqaan xaafadda garan kara East Africa Hotel East Africa maqaayadda weyneed ee Baar Cagaaros عقار وينه رعداني رعجعد وحملنا يا تذكرين كحسوسنا يا شمالي إيو أصحابتي بيشار بدني عبد الله عدي محمد عدي رنتي وأقول أد وين وانا جيد له إن هرمر كان دقمة كارهان وضدان أد كمتقنا هوشة وتجند مدبل شغلة أنا هذا يسعته meesha aan taaganahay midigteedana aan ku naqinay meel biyo-degeena dhulkaana dhul aan ku ogeyn inuu ahaa dhul aad u qariban oo waxa la garan karaa aan meesha oolin wadana inaan loo aqoonsanin oo ahayd meel dad ay iska degan yihiin laakiin caawa waxaa alxamdulilah in ummadana ay garato shacabka magaalada iyo xaafadana ay gartaan annagoo ugu mahadcelinayna khiyaarta garabkayga taagan Carab Cagaaros iyo bulhaan iyo tiimkiisa xama iyo dadka xaafadda deganaa oo hadda wadada kula kulmay sikadiisa oo runtii wadaniyad iyo wanaag iyo horumar ba meel u ah marka aad iyo aadan dhamaanba dhalinyaradii xaafaddan ku naqiinay ee wanaaga iyo waqtiga aan soo wada qaadanay muddada aad u fog oo aanan reer iyo qoys kala lahayn waxa aad iyo aad kullayba walaal iyo waalidba caalamka way ku kala maqanba ay garan karaan wadadan inay tahay wadadii gurigeena ay galisay gurigaas maalinta laga qaxay maanta waxa gacanta ku haya dhalinyarada xaafadda ah ayaga injineer isku bedelay ayaga dhisay ayaga runtii gacan ku haynteeda in badan ahayd oo walaal iyo wanaagiisa leh marka waxaan ka garanaynaa xataa in daris wanaagii lagu gaaray maanta in ay xaafad in badan ay ku badbaado xaafadina wax badan oo iska bedelaan lahayn markaan aragnay inaan dad badan oo hadda guriyooda gadanay aysan lahayn wada jirna iskaashi oo ka jiro marka runtii waa ugu mahadcelinaynaa ka gaar ahaan xaafadda iyo gurigeena cidii gacanta inta badan ka geysatay raqaacow waxaan leeyahay mataqaanaa kulliba reer Xaaji Cabsamed dhinaca kale marka waxay ahayd marka taalla la garan karaayo oo daris wanaaga 30 sano meesha laga maqnaa in sideedii dadka kala duwanaansheeda ahaayeen wax badan aan u ciileen gudoomiye in wadadan mar uun taariikhdeeda la arko waa tii dabka ka dhacaysay gulwadayaasha ka dhacaysay waxaan maleynayaa insha Allah inaan aad u jeclaan inaan mar un ay hawsha ayada ku culaysaaraynay annagoo mahad ugu celinayna shirkadda sida gaarka ah hawshan kullayba dadaalka ugu qabatay Bruj hay'ale waxaan dareemaynaa biyaha fadhigiisa muddo waqtiyada laga taagnaa in ay kullayba cilmi adag ay sameeyaan biyaha hadda roobka ugu dambeeyay meesha gudbo oo ilaa uu sida dega waxaan rajaynaynaa insha Allah shacabka xaafadana inay kulli iskaashigaas iyo wanaagga iyo quruxda socotana ay ku wadaan mid kalena anaga runtii ka wasaarad ahaan iyo ka howl ahaana waxaan aad iyo aad anaga markasta gobolka Banaadir iyo degmooyinka kaashanayna rajaynaynaa insha Allah in iskaashigaas socdo anagoo garanayna marxaladda adag ee hadda la soo galay in cudur baahay oo caalamka qaybihiisa kala ka yimid taa ayadaana kulliba sida looga hortagi lahaana kulliba dareenkeenu ahaa markasta fafiro ila Allah inaan hayd fas'inu bisabr wa salah in ayadana la kalmaysto oo inta aad isku wadeen ba ahayd taasna ka garanayna maanta in baaxaddeena Soomaaliya marka loo eego wixii socday xaaladda aad ku cusleed in qaab kale isugu rogay oo leeyahay ama baasha hergab iska noqoto saf mar ah laakiin in la kaalmeeyo oo la socdo in loo baahan yahay dariskana si hoos loola socdo in loo baahnaan doono insha Allah aad iyo aad waqtiga nuga ah farxadii oo kulliba aad nooga mataqaanaa caawa nooga bedelantay wax fara badan dadka Soomaaliyeed ee garan karaan waa markii ugu horeysay markii la yiraahdo dad baa waxa laga yaabaa inay yiraahdaan maxaa dhacay waa markii ugu horeysay oo dawladda hadda jirta xukuumaddan wadadan waqtigan aan taaganahay oo la garan kara xilligii Ramadaanka oo nagu soo aaday aan doonayna inaan mataqaanaa aad cibaadadan u badan doonto ina ahayd qalqal fara badan ilaahay ku mahadinaynaa ku shukrineynaa aan rajaynaynaa in wadadan iyo guriyihii iyo deegaankii soo bedela annagoo dhayna markastaba dhamaanba meel kasta ay joogaan caalamka naga daawanayaan reer Bakaare ciyaal Bakaare iskaashigooda wanaagooda iyo hawsha ay wiligood ba lagu yaqaanay
وهذا ودد وين كو صباح هذا عيال سي نقضي لكن waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan wax isbedel in badan aan lahayn oo dhalinyaradi ku dayanayaan dhalinyarada hore u taagneed taa iyada dhaxal ah ilmihi yara soo baxay inay isu soo bedelaan aqoontooda iyo wanaagooda iskaashigooda ayagoo markaas xiriir gaaran la sameeyo aad iyo aad baan mudane gudoomiye runtii farxad noogu tahay fursad fiican noogu ahayd in aan itijaahi iyo dhaqdhaqaaqa socda aan caawa la kulanayo shaqadana ay socoto waxaan ku rajaynaynaa guul aad u fara badan dhalinyarada yar ah haddana hamidaada ay tahay in hawsha wax iska bedelaan isbedel weyn degmada aan ka dareemi karno xaafadeen aan ka fahmayno iskaashiga dhalinyarada iyo sida isku xiran yihiin waa wax aad fara badan aadaan u rajaynaynaa insha Allah in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba xilliga iyadu ka faa'iideysanayso waqtiga la galayo waqti cibaado u badan in ayadana insha Allah loogu diyaar garoobo meel kasta la taagan yahay insha Allah anagana waxaan rajaynaynaa sida aan hore u ballan qaadnay lagana arki doono media oo aan ahayn hal la arka kaliya in dugsiyada Quraanka ahaa macallimiintooda si gaar ah xushmadooda leh in aan raashinkii kaga gudbi lahayn xilliga Ramadaanka aan bixin doono biidnillahi kariim taa ayadana kullayba insha Allah aadan u rajaynaynaa in kullayba ayagana ay qaybtooda ka qaataan oo dalkii dadkaba loo duceeyo